sheegaya walaalayaalow dadka ha dhaawicina dhaawac u geysina magaalada muqdisho nabadaa ka jirto ilaa caliyaal iyo carfidaa lagu damaashadooba shalana waa ogeedeen suuqa xoolaha cashuuraa laga qaadi jiray dadka guryaha inta loo soo garaaca aad dhihi jiray keena guryaha cashuurtooda keena la dhihi jiray wax walbana waa ognahay dawlad walba meelay wax keentay maxamed cabdullaahi farmaajo maanta aniga nima qofaan ka jeclahay oo ka taageero badanaa ma jirto xasanka hadda joogo iyo maxamed cabdullaahi farmaajo haddii la farmaajo qaadaha reer ahaana xasan ay xigo haddaa aniga xasan shalay maxamed cabdullaahi farmaajo taageersana muwaadin ahay maantana xasan markaa taageerana reer hebel noqday idinkay idii taallaa aniga qofna kama gambado shalaba aniga qayaarkaya kusoo galay social mediahan waxaa idin sheegaya walaalayaalow hana dhaawicina dhib ha noo geysinina dadkana ha kala dheeraynina wixii xaqa ka hadla iyo wixii dawladnimo ku taageersan xasan 120 dhaliilow leeyahay oo lagu dhaliili karo wax walba ku dhaliila ilo middan al-shabaab mujeedin walaalayaalow hadda muwaadin Soomaaliyeed dalka ka naxaysiino oo dalka waxa ka leediin nagu taageero hadda ka leenin Soomaali inay kala dhaqaaqdaan u jeeda ana hadda idin sheegaya Soomaali inay kala tagtay qof walbana gabalkiisa oo dhisa doono insha Allah bidnillah xasan waa tuu bagayay xasan waa tuu bagayay xasan maanta haduu al-shabaab ka saar gabalada taageeradu ugu badan waa ila waagdan oo haastaana idin sheegay taageerada dadka markaa wareysatiin oo tiraahiino xasan gawaran xasan dal xuraya lagu leeyahay oreel maadeerayaalow ilaahay ha laga cabsado ana qofna kama cabsado bila aadan uu magambahay bila aadan inaan ka dambeeya ka yaabin haddaana reer CBB waxba kala dheereeyna runta idin sheegaya kama hadashiino khilaafka ka dhaxeeya Puntland iyo dawladda federaalka ee afarta maamul goboleed raacsan maalin walba dawladda federaalka iyo Puntland saana isku hasta kama hadashiino maxaa uga hadli laadiin ma u sheegtiin dawladda Puntland qaladkay leedahay midda federaalka ma u sheegtiin qaladkay leedahay walaalayaalow waxaa idin leeyahay meelaa laga rarayaan kowdha ratigan caloosha ka rara meesha ku furi doontiin idinkeedii talawaan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu رالها حليموي رالها أوضل إن وحنا ملاينا أيانتان تويتر مركان جابي وحياوا جرا هذا الكاغا أن ما أنت مغلاي هذا الكحليمة هذا ليسي هذا اللي نعكرر وكاغبا كو إن dadkaad meel ku riixaysin waxaad ka adiga hadda ka cabaadaysid adiga wadido ka muuqata hadalkaaga ciidanka dawladda waa dawladeena xaqaan u leenahay inaan ka sheegno waxaan anaga محمد عبد الله فرماجة عفي ما يجوجي روما حليمو لقامة دحقلين أنها سو دحقلين فضلا أتكيسو دقيسو إنا تهدى عديك قبيل انت إيسو صارت هذا لا تبهد ليس قبيلة كمدات هداتا هاي الشباب العك سينيسي عديك لعكتا يبتي الشباب لقوم القلين إبكا تاغنا كوكتا دولتي دونتها هاتو أم بفرماجها جوغو أم بحسها جوغو أم بقفكها جوغو هداد مالقلينيسي سيداد أفكا كوشاكتا نبكا دالك هايستو كو لابا سدح أداكا متى ذكريتو إن حنا داوعنا يكلا قيبين تدالكتكا waxaad ku dhaqmaysid waa dadka u soo dabaaldego banaanka u yimaado inay soo kala qaybiyaan qabiil kala sheegaan xerooyinka anaga gumaystaan nagu xiray idabanada anaga NGO-yada international community ha sheegto amba muxuu ahaa MPP ha sheegto wuxuu doona ha ahaado dhibka dalka haysto waa ayaga kow labo saddex oo in waana muhiim in la iska qabtaa xalima haddaad wax dhaleeceynaysid
dhiiqada kuwa kaa aad dhaleeceynaysid ay galeen lugaha la gashteen maaha inaad inta noo soo qaado aad noo keento ee waxaa waajib kuga ah wixii qaldan inaad farta ku tilmaanto adoona qofna duud ka saaran wixii saxana aad dhiirageliso haddaad labadaas weey aad ka wareegtid dhibaatada jirtaa qayb ka tahay ee xalka qayb kama ahid mana ka naqan kartid hadalka inta kaa muuqdan waa intaas puntland lama dhaleeceeyaad leedahay seena puntland loo dhaleecinayn basiga aad ka hadlaysaa wuxuu yahay amba afka aad ku hadlaysaa wuxuu yahay af qabiil puntland annaga deni 4 saac ka raacnaa dhibka dalka haystana kow asaw ah dowlad jirto ay soo martay aysan puntland ka raaricin ma jirin inta dowladoo la soo wada maray ayagoo dantooda keliya arkaayo caqabad ku ah dowladnimada ka hormarin dhagahaaga ma maqal sababtoo adigaa dhinac ka raran waana dhibkana haysta annaga haddaa maanta aniga aan u qayliyo aan u cabaado ee aan arko dhibka lagu haayo muxuu ahaa ceelbur reer hooyaday aan arka dhibka lagu haayo reer aabbahay laga raacay ee ay aqligayga iyo soomaalinimadeyda iyo dadnimadeyda ee levelkaas ku ekaado oo aan levelkan ku doodayo uu saas noqdo amba dhigta waxa laygu soo shubo aan la soo istaago meel ya maxaa loo taabta muxuu ahaa laascaanood maxaa ceelbuur ciidanka xasan sheekh ugala soo noqday waa maxaa la qabanaya albaabkeeda loo taagnaa ninka ciidanka lacagta ka jaray uu muxuu ahaa ku qasbay in la soo noqdo ee dhabarjabinta ku sameeyay waa xasan sheekh gurigii asaga lahaa u dirsaday ciidanka qaranka xalimo annaga dhan waan wada joognaa waan wada ognahay soomaaliyaan nahay qabiilkaad ka dhalataan ka dhalanay xanuunka dadkaaga kugu hayaan annaga dhan nagu wada hayaan intaasoo dhan laakiin waa inay noogu weynaataa yah dalkeenna inuu nooga sareeya inaan qofkii wax qabta xataa kii ugu xumaa ee aan ka soo horjeednay ee dhibka noo geystay hadduu hal ficil oo fiican sameeyo aan ku dhiiragelinaa aan ku taageernaa haddaanan intaas iloowin dalna wax uma hayno dadna wax uma hayno been iyo marahabaabinaan sheegaynaa ee fadlan adiga dadka jambalka kuu soo tuuray yah jambalkooda iska celi ee xaliimadaa noo aheed noo ahaaw labada dhinacna garaac dalaad ku sugaayo dalaad intaas usoo dagaalamaysa dalaad u taagneed yah marin habaabinta luuqyada noolagu soo gelayo oo naloo raba in qabiilnimo naloo marin habaabiye ee aan la dagaalamayno ha nooga bixin ee dalkan ku sugaayo u danaani doqon shaati qabiil soo gashta yuusan ku sirin yuusan kob kuu dhigin u sinaaw dadkaaga u sinaaw hadalladaada aaday waxay ugu dhimeen sababtoo ah gabar wadaniyad ah daacadda ka hadlaysay difaacaysay xaqa u sineeda ahayd xaqaas iyo sida lagu bartay iyo siday soomaali dhan kuu jecel yihiin ay ku taagan yihiin waa ku barya abbaay macaaney ha ka bixin annagaa kuu baan dadkeenoo kale ah oo labada dhinac karbaashaya qabiilka aana u leexanayn ee dadka koow u muhiimka ah aa la rabaa xamar waa kuna wada noolnahay 4 saacana lala soo wada hadlaa dadkeenna waxa ka dhacaya waan ognahay meelaha nabadda ah waan ognahay dhibka dadka cabsiday qabaan waa ognahay waxay ka tabanayaan waan ognahay maalmo ka hor aday ahayd qofka afkeeda ka sheegay maanta inta noo timid aa wax kale ku hadlaysa waa laga yaabaa in lagaa xanaajiyo waa laga yaabaa dad ayaantan aan u jeedno shaati nabadii noola wato shaati CBB wato ee qabiil hadalkooda dhan ku salaysan yahay ee cawaaniin ah inay soo baxeen laakiin maaha inay kuwaas adiga ku marin habaan labada dhinacba way jiraan ka difaaco adiga mabda'aaga laakiin ayaga ha hor ordin hadhiin anay dadkayga qabsadeen aniga ayaga qabsadeen عليمة ha عليمة هذا واحد قدره واحد يدك واحد سبعين سنين قد يبدأ يوحى CBB أما النموذج الأمثل يا لقي لي وقف أوقفها أنا ما فاهم أصلا قف مش أوقفها سيوقف حسابي قد يبدأ أمثل وأمثل تقف كذا استرافع حتى وحدي تعذر رأي على رأي كلام لكن رأي قوم مثل ما
marka waxaan leeyahay baradka dhahaya anigu waa ka baxay iyo anigu lama joogo inna kaama lahan ilaa lama yaqaan hadda macnaha hadda nabada nolol iyo CBB laakiin haddii marka hore adiga ajinta kale aad ku taageeraysid easy ku noqonaysaa ka baxday laakiin ajinta ku taageerin mowqifka ku taageerin mowqifku inuu taagan yahay geeska ka difaaco qof walba geeskiisa ka difaaco hinda ku xigtaa uma leenaaya ما وحيران كدرسا حليمة حليمة ما حليمة وحيران كدرسا أنا وكبحة إن شاء الله وتلفك قدام الربكودة حليمة أنا هذا قبيل دونيو وقبيل دنك الله يا شمس سنة فرماجة ما تاجرين حسن كمسؤول جيدين قبيلنا هدي اللي بدلي كرو يوحول بهدي اللي بدلي كرو مرهرة اللي بدلي لها فهمتي حليمة فرماجة مهمة دلكاga مهمة مايا دالكيga farmaajo dantii dalka ka dhaxarkay waxa taageerayaan farmaajo xisma taageeray dalka aan joogno marka hadda ana hatta ku sheegaya arinta oo ka xanaaqay oo idik hadda ilaa waqti idin ka xanaaqsana waxay tahay arinta shabaab aniga idin leh oo lacagta oo dhiibi jirane hooyada qasabay ku ahayd oo waxa la grid raba gambaal iyo had fuula la grid aad wana lacag ka badan lagu siyaa dana u dhiibay maana shabaab jacayl oo jacayl وحتى إلى دجال كجلاني دتك كجد أنت الباب كون كسر علي حسن شاف أنا دتك ملك لقى سر علي ماشى أفاي قدم بي هذا حسن عتاب قال مو شقيا مر يو محيط إيشك ما بيا واحد إيشك أباي نجيس دوت كلا قال ما يوقف سلامة كوده ما يا ليبل كاس أنا عادين أسكري ليبل كاس دجيس أنا سكول دجنو ويلاشي الدجال لما أبحي تاجنا وبحق الباب كده قمر ربي لسوق عليه يا لعبت هذا لغز محيين كواس قرقة اسمها مية قرو سومالية وما حي سببت اللو سعودية ورداعتها دي كتهي ميشان لدقالن كأرقك إصدا يا أي صح كتهي اللو تاغن أنا قرب تاغن فرصة أقول فينا ما قرب تعرف أنا كماشا قولها كهاد لينا كودة إنو قاري دوننا إنكلان الله يوعلن ضد دارنا إنو كوبلي مجعلي انت أنا نوغو إن شاء الله دار ما بقول لك لا ما اسفهمين فهمتي قفنا اسفهنا في عن مركا إن شاء الله ورو صعد إن شاء الله ويدي دقيسة أفيري أنا كنا قنا أنت ماشي كنا قبايو قبل قالي أنا قلت هاي كنا قو يا أوسنانو دنت ضلك أنك سنانو la dagaalanka argagixisada aan ka sinaano laakiin loo cadaaladiyo ma dhici karto inuu madaxweyne wixii ciidanka inta qaranka inta wato xaafadiisa ku nadiifsado oo xaafadii kale oo la nadiifinayo albaabkeeda la taagan yahay yiraahdo dib ha looga soo noqdo hadaa ka soo noqonayso in lacagta idinka goosanayo maxaa liiska ciidanka idinka saara ma dhici karto mana soconayso in ciidamada madaxa laga toogto ما أها وحلة تايكر ما أها إذا ما لو بقول كله إن هل هبين لايو وأنا لا جهلن محيطها وحلة سمينا ما أنا وحن كنت هجيرة إن أحافظي ضد غاز الله وشقي ما وحن كنت هجيرة إن هبكي لكان الدلك قرن كأها أو أيرجع عند اللوجليو ما هو حاس أقلي ها وارمنا وحكلية وقفي عن وقالسن مدعوين الصومالي صومري حسن شيخ صومري وقت أي صومالي دي عبسيدة كقبتي أنا كهدي كر الشباب كل يرت إنك هذا شو هرتي سمجري مركي وجوه رئيسيات وهم حسوت وكفهم واي وهم حي فرصتها إن الويا ويا لسه طبعا صوتوا واستعمال لا سبب وهم حي بنوصل لدقالك حق وقول لك لا يعني مالك سوقين لا يعني waxa lagu dhaleecaynayo dhinaca loo wado waa in la miisaama qiimihiisa laguma dhaleecanayo mala dagaalay ma bilaabin wuu bilaabay laakiin xaq kama aha sax kama aha uma sinna أنا هذا كل حاجة قدمنا محمد قيرة